dhaawac waa igu dhacay halkan dabaq halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaa kugu dhacay maxaad uga soo dhacday walaal dee meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahnay meesha cadaalad ma taalo moobila iyo wax iyadu u daxan Syrian ma isleenay kadib Syrian waxaan isleenay waxay noo soo qaadeen booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan imika inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga kulligeegi dibadda nagu dhaan seexda dadkii naga qaatay moobiladii alaabta naga qaatayna dadkoodii baa markii uu turjumo u hadlay afkiiba garanayay annagu sida dibtaasaan haysata kadib aniguna aan ku soo noqday kaamkii markii dibadda ay saaray dibta darteed baan kaamka inta ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa aan siri dabaqood ka soo tuuray dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad iska soo tuurtay dhibaatada iga haysta meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan ragga kala warramayaan wadanka waa anaga aan ku qaabilsanayn dan Afrikaanna marka dabaqa iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay inaan iskaba dhintaba oo inaad istishaad doonaysay noloshay igu adkaatay dabada maxaa dhacay meeshan baan meel baahan walaal meesha meel wanaagsan ba ma haba hay dabaqaad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna dee afar cishan kuma ku jira dhakhtarkan aalay hay maxay see wax ku gaadheen la gacantan labada gacmood aan ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah dee wala taagana ku warramaya waan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday kan baa ku igu soo celiyeen meesha igu soo celiyeen kaamkii igu soo celiyeen imkood fiicanta alxamdulillah rabbil caalamiin kuma fiicana wala maxaa ku qorshaysay maxaa sameeyay wax laala waxaan ku imika dee ka baxbaan isla wadanka Sweden u baxmaan isla way soo qabteen maalin way soo qabteen wadanka halka lagu socnaan dhaawaca wadankan baad ku dhaawacantay xaq u leedahay joog bay ugu dhahan xaq aan ku yeeshay sharciyo waxaan doonayaa waan ku wariyo bayt fiican la geeyo kadib dee guri fiican la ima geen xilligaan interview waxba tan laga maqaan sharcina la ima siin halkan baad xaq u leedahay ugu dhahan xaqna kama hayo xaq iyo xaq waqtana marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inay horta dadka Afrika imika joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta waxaan u leeyahay horta Yurub waxba ma yaalaan hana ku sahmiyaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogowna Ilaahay dee khayrkeeda Ilaahay idin kulisiyo wana la aragteen adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale soo maad maqli jirin markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan siran jiray dadku waxay sheegayaan been imika waxaan ogaaday inay dhabti tahay berefooda aya dhaxamo gaajo Afrika ma kuma gaajoon jirin baa halkan baan ku gaajoonaaba aad baad u mahadsantahay adaa mudan